السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا kanaalkeena ciyaaraha iyo muuqaal cusub oo ka tirsan Euro 2020 oo aynu ku falanqayn doono kulanka caawa dhexmari doona labada xul ee Ingiriiska iyo Ukraine fadlan dad kanaalka cusub tahay subscribe saar sidoo kalena daar gambeelka digniinta si ay ku soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeya aan soo galino ee ku saabsan caalamka isboortiga mar labaad ku soo dhawaada muuqaalkan England ayaa caawa ku raajogto u soo bixitaanka semifinalkeedii labaad ee xiliid ah ee tartan weyn marka ay caawa Roma kula kulmaan xulka Ukraine xulka saddex libaax ayaa cadawgoodii soo jireenka ahaa ee Jarmalka kaga reebay koobkan wareega 16 ciyaar ay ku adkaadeen 2 gool iyo waxba oo ka dhacday hoygooda Wembley dhanka kale Ukraine ayaa iyagu guul lama filaan ah waqtigii dheeraadka ee ciyaarta kaga soo baxay xulka Sweden markaas oo ay ku adkaadeen 2 gool iyo 1 Ukraine waxay markii horeba wareega 16 ugu soo gudubtay sababta Sweden oo 3 gool iyo 2 kaga adkaatay Poland taas oo wadada u xaadhay in Ukraine ay ku soo baxaan kaalinta saddexaad si kastaba xaalku aade dhanka uu tababaro Andriy Shevchenko ayaan si naba naxariis ugu galin Sweden goolkii gantaalka ahaa ee uu saxay Alexander Zinchenko iyo kii waqtiga dheeraadka ah u dhaliyay Dovbyk ayaa u horseeday guul taariikhi ah inkastoo ay groupkooda ka soo qaateen kaliya 3 dhibcood 9 dhibcood ee u suurtagalka ahaa haddana tababaro Shevchenko ayaan danayn siin doonin qaabka uu ku soo baxay xulkiisu maadaama uu hadda isha ku hayo soo bixitaanka semifinalka koob weyn markii ugu horeysay taariikhda xulka kubadda cagta ee Ukraine kasoo muuqashadoodii wareega quarter finalka ee u horeeyay abid koor kulanka caawa ayaa ahaa kii koobka adduunka ee 2006 markaas oo ay dhibano u noqdeen ku guuleystayaashii koobkaasi ee Italy hadda oo uu soo gabagaboobay sugitaankoodii dheeraa ee 15 sano ahaa Andriy Shevchenko ayaa dhiirigelin ka qaadan doona waayihiisa ciyaareed ee dahabiga ahaa si uu gaaro guul aad lama filaan ah kabtanka xulka England ee Harry Kane ayaa dareen farxadeed madax maray inta lagu guda jiray wareysigii ka dambeeyay kulankii ay Talaadada la soo dhaafay la ciyaareen Jarmalka kadib jabintii gool la'aantiisii Euro 2020 wajigiisa ayaa wax walba laga akhrisan karayay tababare Joachim Löw ayaa kulankiisa ugu dambeeyay ee tababarida xulka Germany bilowgii hore ee ciyaarta xulkiisa kubad wanaagsan soo bandhigay laakiin difaaca adag ee Ingiriiska ayaa muujiyay sababta aan ilaa hadda 540 daqiiqo oo xiriir ah shabaqooda loo soo taaban markii daqiiqada ciyaartaasi maraysay 75 ayaa xidiga Raheem Sterling sii waday qaab ciyaareedkiisa hoodanka ku ah goolasha markaas oo gool dhalinta ciyaarta uu daahfuray in yar kadib waxa fursad cad oo gool hayaa kula soo baxay beerdaray ciyaaryahan Thomas Muller goolkaasi hadii uu dhalan lahaa waxa la rumaysan yahay in uu ciyaarta wax badan ka bedeli lahaa ugu dambeyntiisa waxa England goolka labaad ee hurdada u diray Jarmalka dhaliyay Harry Kane oo isagu sidayna hore u soo xusnayba soo afjaray abaartii gool la'aanta ah ee ka haysatay tartankan kadib ka soo gudbidda waxay rumaysan yihiin inuu ahaa caqabadoodii ugu weynayd ee koobkan taageerayaasha Ingiriisku waxay u hanqaltaagayaan ciyaarta finalka ee 11 July ka dhici doonta garoonka Wembley sababtoo waxay caawa la ciyaarayaan xul aad uga awood liita halka hadii ay soo baxaan ay wareegga semifinalka la kulmi doonaan labada xul ee Czech Republic ama Denmark inkasta oo hanqaltaagaasi jiro haddana waxaan la iska indhatiri karin xulalkan saddexda ah oo wareegga 16 soo kala reebay Wales, Holland iyo Sweden oo iyagu ahaa kuwa aad loogu saadaalinayay in ay soo gudbi doonaan kadib la bixitaankoodii shabaq nadiif ah talaadadiina dhaaftay xulka Ingiriisku waxa uu qaaday raadka xulkii Jarmalka ee 2016 oo iyana shabaqooda la taaban 4 kulan ee u horeeyay haddaba waxaa muhiim ah in aysan taasi ka qarin in laga yaabo in caawa ay noqon karto habeenkii Ingiriisku hadhi lahaa waa haddii ay tagaan rigoorayaal maadaama oo dhammaan saddexdii jeer ee koobkan tageen wareegga quarter finalka lagu go'aamiyay rigoorayaal haddii aynu soo laabano labadan xul Ukraine iyo England ayaan foodaystarin tan iyo markii ay kulan saaxiibtinimo oo 2013 dhacay ku kala baxeen barbaro gool la'aan ah markii kaliya ee labadan xul ay ku kulmeen koobkan waxa uu ahaa tartankii la qabtay 2012 markaas oo gool u dhaliyay Wayne Rooney ka kaalmeeyay England ka soo bixida groupkoodii weeraryahanka Ukraine ee Artem Besedin ayaa dhibano u noqday tackle argagax leh oo kula kacay daaficii xulka Sweden ee Marcus Danielsson kulankii wareegga 16 inkasta oo aanu jabin haddana waxa laga cabsi qabaa in aanu garoomada ku soo laaban doonin ka hor sanadka 2022 isla Ukraine ayaynu wali ka hadlaynaa xidiga khadka dhexe ee Alexander Zubkov ayaa lagu soo waramayaa in dhaawac fudud oo soo gaaray uu ka soo kabsaday halka Denis Bobov uu ku seegi doono kulankan dhaawac soo gaaray goolkiisa taariikhiga ahaa ayaan Dovbyk u suurtagelin doonin inuu ku soo bilowdo kulankan bedelka Andriy Yarmolenko iyo xidiga lala xiriirinaya kooxda Arsenal ee Roman Yaremchuk
dhanka Ingiriiska hadaynu milicsano labada laacib ee Mason Mount iyo Ben Chilwell ayaa soo dhameystay muddadii ay iskarantiimeeyeen kadib markii looga shakiyay xanuunka coronavirus. Si kastaba ahaatee Chilwell ayaan sinaba ula baratami doonan xidiga qaab ciyaareedka wanaagsan ku jira ee Luke Shaw. u bedelida daaficiisa 3 ciyaaryahan ayaa macallin Southgate u shaqaysay kulankii Germany waxayna u badan tahay inuu mar labaad dhaqan gelin doono. Jack Grealish ayaa isagu kadib bandhigiisa wanaagsanaa ee kulankii Jarmalka la filayaa in uu ku soo bilowdo safka hore ee ay ku wehelin doonaan Kane iyo Sterling. hase ahaatee waxa sidoo kale booskiisa la sheegaya in lagu soo bilaabi karo Mason Mount. ciyaaryahanada Declan Rice iyo Calvin Phillips ayaa labadooduba kulankii Jarmalka qaatay kaarar jaalayaal ah oo haddii ay labadan xidig mar labaad ay jaalayaal qaataan waxa ay seegi doonaan kulanka semifinalka haddii ay soo baxaan. sidaas darteed waxa macquul ah in tababare Southgate uu ku soo bilaabo Jordan Henderson si aanay taasi u dhicin. guud ahaan macallin Southgate ayaan ku samayn doonin wax ka bedelo aad u badan line-upkiisii uu kala hortagay xulka Jarmalka. haddii aynu eegno line-upiska macquulka ah inay ku soo kala galaan labadan xul, Ukraine waxaa la filayaa inay ku soo galaan 12 ciyaaryahan ee soo socda: Boortaha, Bushkan, Difaaca, Sabarniyi, Kristof, Matvienko iyo Karafayev. dhexda waxaa la filayaa inay ku soo bilaaban doonaan saddexda laacib ee kala ah Sidorchuk, Shabarenko iyo Stabanenko, halka weerarkan ay hogaamin doonaan saddexda xidig ee kala ah Sinchenko, Yarmolenko iyo Yaremchuk. England ayaa iyana la filayaa inay ku soo bilaaban doonaan sida macquulka ah shaxdan soo socota: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Declan Rice, Jordan Henderson, Luke Shaw, Mason Mount, Harry Kane iyo ugu dambeyntii Raheem Sterling. asxaabta nagu xidhan muuqaalkan aynu ku falanqeynay kulanka caawa ka tirsan quarter finalka koobka Euro 2020 ee magaalada Roma ku dhex mari doona labada xul ee Ingiriiska iyo Ukraine. intan ayuu ku egyahay. fadlan haddii ku cajabiya like saar, lana wadaag asxaabta kale oo taabanaya buttonka share-ta. ugu dambeynna ha hilmaamin inaad subscribe saartid kanaalkan haddii aadan hore u saarin, adoo sidoo kale daaraya gambeelka digniinta si ay ku soo gaadhaan muuqaalada ugu dambeeya ee aanu bartan soo gelino. waa anigoo idinkaga tegaya waa inay muuqaalka kan xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Get live.